أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي ولكن آدم نور حسن waxaad kusoo dhawaatiin kanaalkana muuqaal barashan insha Allah maanta barnaamijkeena hadii waxaan rabaa inaan kula wadaago website uu ka faa'iideysan karo qof walba oo social media ku jiro. Haddii aad tahay YouTuber waad ka faa'iideysan kartaa, haddii aad tahay graphic designer waad ka faa'iideysan kartaa, haddii aad tahay video editor waad ka faa'iideysan kartaa, sidoo kale haddii aad tahay qof e-commerce ama ganacsi ku leh internet waad ka faa'iideysan kartaa. marka website-kan qof kasto muuqaalkan daawanayo oo social media ku jiro uu ka faa'iideysan karaa. insha Allah website-kan wuxuu yahay aynu gudbi doonaa aynu gudgalno barnaamijkeena. ugu horeyn intaynu gudgalin barnaamijkeena waxaynu ka codsanaynaa kanaalka muuqaal barashan haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar, videogan like saar, bal isku day muuqaalkan inaad gaarsiisiin 500 oo like ah. aad u mahadsantiin dhamaantiina. ugu horeyn waxaad ka isticmaali kartaa website-kan aan kula wadaagi doono insha Allah telefonkaada aad ka isticmaali kartaa ama computer aad ka isticmaali kartaa. almost aniga waxaan isticmaalayaa computer aan isticmaalayaa browser-ka aad jeceshahay aad soo furanaysaa. website-kan magaciisa waxaa lagu magacaabaa Trello ayaa lagu magacaabaa. marka website-kan linkiisa waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose video-ga description-ka. haddii aadan description-ka aadan aqoon comment-igu hore aan kugu bin gareyn doonaa. ugu horeyn marka website-ka wax walba oo design ah ayaad ka samaysan kartaa qaab free ah oo template ahaan ayaad ka helaysaa. haddii aad design gooni aad u baahan tahay waad ka samaysan kartaa. marka templateskiisa ayaa aad u badan runtii. ugu horeyn marka website-kan waxaad u baahan tahay inaad account ka samaysatid. account-ka waxaad ugu samaysan kartaa Gmail-ka ama sidoo kale Facebook ahaan ayaad account ugu samaysan kartaa. marka waxaan kula talinayaa marka inaad account ka samaysatid. account-ka waxyaabaha uu ka caawinayo haddii aad ka samaysatid waxaa kow ka ah haddii aad ka mashquushid design-ka aad samaynaysid isla meeshii ayuu kuu joogayaa oo my projects ayuu kuu gali doonaa. kadib waqti aad firaaqo usoo heshid ayaad samaysan kartaa, dib ugu samayn kartaa. marka account ka samaysta, Gmail-ka ku xirta ama sidoo kale Facebook-ga ku xirta. marka website-kan Trello-ha wax walba oo design ayaad ka samaysan kartaa runtii. designiska meeshan ku diyaarsan aad ay u qurux badan yihiin. waad u jeedinayaan filay wax walba oo design ah waad uga imaanaysaa. haddii ay logo tahay, flyer haddii ay tahay, YouTube thumbnail haddii ay tahay, waxyaabo video story wax walba, TikTok, Instagram wax walba aad ka helaysiin. almost marka website-ka markaa soo booqatid qaybtan waxaad ku dhufanaysaa marka templateska aad ku dhufanaysaa. marka qaybtan templateska markaa soo dooratid website-ka Trello-ha wuxuu ku keeni doonaa dhammaan templateska ku jira website-ka ayuu ku keeni doonaa. marka aad ay u adag tahay meeshan oo isku dhex yaacsan yihiin templates aad u baahan tahay si aad ugu dooratid aad ay u adag tahay. marka waxaad samaynaysaa calaamad searching ay kugu soo diyaareen qaybtan sare templateska aad raadinaysa ama design-ka aad raadinaysa. haddii aad magaceeda aad taqaanid qaybtan aad gelin kartaa. tusaale ahaan thumbnail oo kale YouTube thumbnail ayaan gelinayaa. kadib wuxuu ku keeni doonaa thumbnails aad u fara badan ayuu ku keeni doonaa. marka meeshan calaamadan searching-ka ah haddii aad design-ka aad raadinaysid magaciisa haddii aad taqaanid waa searching gareyn kartaa. ama haddii aadan aqoonin design-ka aad raadinaysid qaybtan waxaad ka raadin kartaa meeshan filterska waxay kugu soo diyaareen marka designiskii ay kugu soo diyaareen meeshanna marka group ay u soo diyaareen. tusaale ahaan waxyaabo oo social media post haddii aad u baahan tahay qaybtan ayaad soo furaysaa. sidoo kale blogging, sidoo kale waxyaabo la xiriira cover and headska qaybtan ayaad soo furaysaa. sidoo kale waxyaabo advertising ah qaybtan ayaad soo furaysaa. marka design kasta aad u baahan tahay qaybtan ayaad ka raadin kartaa. tusaale ahaan hadda YouTube thumbnail ayaan soo doortay. marka thumbnailska meeshan ku jira runtii dhammaantood aad ay u qurux badan yihiin. midkii ku habboon muuqaalkaaga ayaad dooran doontaa. bal tusaale ahaan qaabkaad u edit gareyn lahayd aan kula wadaago thumbnailska meeshan ku diyaarsan midkaan ayaan dooranayaa ani hadda. marka design-ka aad u baahan tahay markaad soo dooratid waxaa kusoo furmi doono qaybtan editor-ka ayaa kusoo furmi doono. qaybtan sare iska fiiri design-ka aad soo dooratay iyo sidoo kale cabirkiisa. marka qaybtan toolska markaad fiirisiin oo kale templateska waad iska bedeli kartaa. waxyaabo thumbnails kale oo u dhigma midkaad soo dooratay oo kale ayuu ku keenayaa. haddii aad u baahan tahay waad iska bedeli kartaa. tusaale midkaan oo kale hadda markaan click ku siiyo isla mid kale ayaa lagu bedelayaa midkii aad soo dooratay. marka almost qaybtan waad ka bedeli kartaa. sidoo kale qaybtan photo ay ku qoran tahay waxaad ka helaysaa isla website-kan Trello-ha ayaad sawirooyin ayaad ka helaysaa oo aad u qurux badan oo haddii aad u baahan tahay aad isticmaali kartay. qaybtan video-gana sidoo kale muuqaale aad ka helaysaa haddii waxyaabaha aad samaynaysid muuqaale ay yihiin. qaybtan music ayaad ka helaysaa, animation ayaad ka helaysaa. qaybtanna waxyaabo oo objects aad ka helaysaa. qaybtanna backgroundska qaybtan ayaad ka helaysaa backgrounds aad u qurux badan. sidoo kale waxyaabo text haddii aad u baahan tahay inaad kusoo dartid. marka qaybtan toolskana saaxiibayaal waxyaabo badan ayaad ka helaysiin. isticmaal insha Allah.
ugu dambeyn marka qaybtan hoose waxaa ku qoran my files ayaa ku qoran my fileskan projectigaada waxyaabo kale haddii aad u baahan tahay computerkaaga kugu jiro ama telefonkaada kugu jiro inaad kusoo dartid projectigaaga qaybtan marka waxaad ku haysataa marka upload image or photo aad ku haysataa haddii aad click ku siisid waxaa kusoo furmi doono computerka gudihiisa ama telefonka gudihiisa ayaa kusoo furmi doono sawirkii ama videogii aad u baahan tahay waad soo gelin kartaa sawiraantani waxyaabaha meeshan saaran marka waad iska bedeli kartaa sawirkaaga ayaad waxaad ku samaynaysaa drag and drop aad soo gashatay kadib waad dulgeynaysaa waad ujeedin ayaan filayaa marka sidoo kale waxyaabaha qoraalkana double click aad siinaysaa qoraalkaad u baahan tahay aad ku qoraysaa tusaalehaan thumbnail and low hadda sidoo kale qoraalkaada haddii aad u baahan tahay waad iska bedeli kartaa qoraalka markaad dooratay qaybtan qoraalka propertieskiisa ama astaamihiisa ayaa kusoo furmi doono qoraalka haddii aad u baahan tahay dhankan ayaad ka bedeli kartaa size-ka haddii aad u baahan tahay waad iska bedeli kartaa bold haddii aad u baahan tahay italic underline sidoo kale haddii aad u baahan tahay alignment waad iska bedeli kartaa marka waxyaabaha la xiriira qoraalkan inta aad ka bedeli kartaa qoraalkaada haddii aad u rabtid heading oo kale iyo sub heading iyo body text waxyaabaha qoraalkan dhankan ayaad ka bedeli kartaa qoraal kale haddii aad u baahan tahay inaad kusoo kordhisidna qaybtan textiga imow kadib qoraalkaad u baahan tahay aad kusoo kordhin kartaa waad ujeedin ayaan filayaa marka saaxiibayaal wax walba ku saabsan markaad bedelatid designkaaga waxaad u baahan tahay marka inaad download gareysatid waxaad ku dhufanaysaa marka calaamadan download ayaad ku dhufanaysaa calaamad download markaad ku dhufatid waxaa kusoo furmi doona marka formaatyo badan ayaa kusoo furmi doona ma jpeg ayaad u baahan tahay marka formatyadu waa inaad kala fahansan tahay jpeg maad u baahan tahay mise png sidoo kale png oo transparent ah iyo sidoo kale pdf standard ah marka waxyaabaha pdf-ka oo kale meeshaan presentation ayaad ku diyaarin kartaa marka almost marka formatka aad u baahan tahay aad dooranaysa aad u baahan tahay inaad ku save gareysatid designkaada kadib download ayaa leedahay marka wax walba oo ku saabsan designkaada markaad dhamaysatid sidaan ayaad ula soo degi kartaa designkan waan soo dejinay marka waxaan rajaynayaa saaxiibayaal dhammaantiin inaad wada fahanteen website-kan loo magacaabo Karela qaabka loo isticmaalo sidoo kale haddii aad u baahan tahay logo qaybtan searching-ka haddii aad logo ku qortid waxaad helaysaa marka loogooyin aad u fara badan aad bedelan kartid tusaalehaan loogadan oo kale hadda markaan soo doorto click ayaan ku siinayaa marka website-ka wax walba ku saabsan design aad ugu imaanaysaa waxaan rajaynayaa intaas inaad ila fahmaysiin hadda loogadan xarfo waxay ka kooban tahay sd ay ka kooban tahay qaybta markaan double click aan siiyo waxaan ku qorayaa some development ayaan leeyahay marka qoraalkaaga si aad wax badan aad ugu bedeshid highlight ku sameey kadib qaybtan size-ka oo kale 30 ba aan ka dhigo ama sidoo kale 24 oo kale marka sidoo kale qaybtan hoose waxaad u sameyn kartaa tag aad u sameyn kartaa tag-gaadu wuxuu yahay adiga yaqaano marka haddii aad u baahan tahay marka asigoo background la'aan inaad download gareysatid loogadan waxaad sameynaysaa background-kan ugu hore iska delete garee hadda meeshan saaran delete caadi aad ku sameyn kartaa qaybtan ama del ayaad taaban kartaa hadda waa png loogadaad sidaan ay meesha ku saaran tahay kadib markaad iska delete gareysid background-kan oo kale download ayaa leedahay iyadana loogada marka formatyada ayuu kusoo qaban doonaa formaatkaad u baahan tahay inaad ku samaysatid loogadaada ayaad dooranaysaa kadib download ayaa leedahay marka saaxiibayaal waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad ka wada heli doontiin website-kan lagu magacaabo Karela linkiis waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose videoga description-ka haddii aadan description-ka aadan aqoonna comment ugu hore aan kugu biin garan doonaa marka wax walba oo design ku saabsan ayaad ka helaysaa marka muuqaalkan kuma soo koobi karo website-ka oo idil insha Allah waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad u gudagali doontiin walaalkiin Adam Nur Xasan oo idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh